qaar ka mid ah culimada iyo waxgaradka degmada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa ku baaqay in gacan laga geysto dhismaha college-ka agoonta ee deegaankaasi oo dab uu qabsaday uu waxyeello gaarsiiyay sida uu warbixinta warkan inoo ku faahfaahinayo wariyahayga Cabdikariin Cabdullaahi Takar. halkani waa college-ka agoonta ee Alnuur ee degmada Galdogob 23 bishan ayaa xaruntan dab xoogan oo ka kacay dabkaas oo gabi ahaanba agabkii xaruntan yaalay baabi'iyay sida goglihi ay ardada ay ku seexanayeen sariirihii kaydkii raashinka iyo wixii la halmaababa. xaruntan ayaa sanadkii ugu dambeeyay hoy u ahayd in ka badan 80 arday oo agoon ah. culimada odayaasha waxgaradka gudoomiyaha waxbarashada degmada iyo maamulka college-kan ayaa waxay ku baaqeen in si degdeg gacan looga geysto dib u dhiska xaruntan si sanad dugsiyeedka dhawaan furmi doona oo college-ku u hawlgalo. xarunta agoonta Alnuur waxaa la furay oo si sax ah sanad dugsiyeedkeedii koowaad uu bilowday 2006 waxay ku fadhidaa cabir dhan 60-40 bay ku fadhidaa. waxay ka kooban tahay gurigan chiefka oo qololkaas waaweyn leh. waxay ka leedahay hoolka cuntada, waxay leedahay stoorka, waxay leedahay xafiis, waxay leedahay meel salaada lagu tukado, waxay leedahay kale jiko oo cuntada lagu diyaariyo. waxa kale oo ay leedahay sanadkii ugu dambeeyay waxay hoy u ahayd arday gaaraysa 80 arday baa jiifsanayay seexanayay oo cuntadoodii iyo maartay waxbarashadooda iyo caafimaadkooda loo qabay oo halkan joogay. muddadaas dheer ay shaqaynaysay waxa maalgelinayay jaaliyada deegaanka dal iyo dibadba ayaa gacan siinayay muddadaas dheer ay xaruntu furnayd. runtii markii taariikhdu ay 20kii bishii 10aad 1440 hijriyada oo ku beegnay 23 bishii 6aad 2019 ayaa hoygaas dab qabsaday. waxaan halkaan maanta ka dhacday arrin musiibo oo ah college-kii agoonta Alnuur ee Galdogob ayaa dab qabsaday. marka dhammaan wixii yaalay meeshaas waa gubteen. waxaa ka koobnaa dhismayaal badan oo ilaa 8 qol ah iyo hall weyn. dhammaantood dabkii waa wada qabsaday waana gubteen. wax ka badbaadayna ma jiraan. waa xarun agoomeed, waa xarun waxbarasho agoon ayaa ku xareysnayd iyo dad danyar ah. marka waxaan ka codsanaynaa anoo ku hadlaya afka maamulka in la kala qayb qaato sidii dadka danyarta ogoomaha waxbarashada ee dib ugu sii wadan lahaayeen. sidaad maqashaan meesha musiibo waxaa ka dhacday ama khasaare baaxad weyn. dhammaan wixii agab meesha yaalay iyo qololkii chiefka iyo stooradii iyo dhammaan waa u jeedaan way baaba'een. wax la baajin karay ma ahayn. laakiin hadda maxaa nala gudboon ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyadoo bannaan noo suurtageliyay maanta inaan ka dhisno waxa weeye barnaamijkaas oo dhan oo waxa maanta inii muuqda. ilaahayna waa awoodaa in maanta sideedii iyo si ka fiicanba inay ku soo noqoto. markaan waxaan dhahayaa dhammaan message-ka aan diraya waxay tahay jaaliyadii iyo community-gii hawshaan dhisay baan marka hore fariin u dirayaa inay meeshii dib habeen ku sameeyaan. ka bacdi hay'adaha caalamiga dhammaan ururada dawladda Puntland dhammaantood waxaan ugu baaqayaa meeshaas inay gurmad gacan mugle u soo fidiyaan. hadda meeshaan waa la arkayaa sawirkaad ku arkaysaan qof kasta oo muslim ah oo muxsin ah waxaa la gudboon meesha agoonta lagu dhaqaalayn jiray oo lagu hayay oo hoyga u ahayd oo sidaa noqotay ilaahay dartii inuu wax ula baxo inuu meeshaas sidii si ka fiican uu ku fakaro in laga dhigo. markaas muuqaal kale hadda maaragtay tarniinkii wada aragtaan waxdii dhammaan wixii ka koobnaa qaybo ka koobnaa wax ka haray ma jiraan. sidaa darteed wasaaradda waxbarashada oo aan wakiil ka ahay gudoomiyaha waxbarashada kormeer ku soo sameeyay shalayto maalintan aan markii labaad ku soo noqday ay tahay. waxaan ka codsanayaa dhammaan waxbahda waxbarashada iyo dhammaan hay'adaha caawiya in si degdeg ah wax uga qabtaan maadaama iskuulka sanad suudeedkiisa ay ka hadda hal bil ilmo badan oo agoon wax ku baran jireen. cid kastoo wax ka caawin karta wax ka qayb qaadan karta waan soo dhaweynaa dib in la kariim. dhammaan waxaan leenahay cid kastoo islaam oo wax ka qayban ka dhameesha waa agoon, waa xarun agoomeed Alnuur, waa xarin dadku dhammaan u siman yahay oo wax qabashadeedu u siman tahay. cid kastoo agoona waxaan leenahay walaalayaal cid wax ka geysan ka dhax ka geysato oo ana uga mahadcelinaa ilaahayna ajar iyo abaal idinka siiyo. Cabdullaahi Cabdikariin Takar, SBC degmada Galdogob.